بسم الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalaha waan salaamay insha allahu tacaala qolkan barakaysan woman 4 woman 5 iyo dhammaan walaalaha facebooka intaba nagala socda insha allahu tacaala. waxaan runtii u mahad celinayaa fadiilata sheekha doctor sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo hadda su-aalihii iyo jawaabihii ka baxay, iyo walaalaha qolkan daadihinaya iyo qolalkan labada aba insha allahu tacaala. ilaahay subxaanahu watacaala khayrka aad ku jirtaan mar walba, rag iyo dumar bale miisaan alxasana allah idiin geliyo. kelimada aan insha allahu tacaala raba inaan jeediyo ama insha allahu tacaala waxay noqon doontaa laba qodob oo keliya insha allahu tacaala. qodob waxaan rabaa inaan waxoogaa ku fiiriyo cudurkan dunida waalay oo adduunka wareeriyey, yushbihu alqiyaama. yacni dhinac marka la fiiriyo qiyaamada ayuu ka shabahaa, dhinac kale marka la fiiriyana lacalahu khayr, inuu khayr yahayna waa suuragal. dadka dhagahooda wax unbaa kusoo dhaca xun, ummadii oo baaba-aysa, ummadii waa dhammaatay, ummadii waa kala carartay, ummadii marka adduunka su-aasha la isweydiin doonaa waxay tahay, wax sidiisaba shar uunihi ma jira oo ilaahay abuuray, mise waxaa jira wej ama dhinac kale oo inaga qarsoon oo lacalahu khayra, inuu khayr uu jiro. haddaba kelimada hore waxaan rabaa inaan idhaahdo coronavirus yushbihu alqiyaama. coronavirus wuxuu shabahaaba qiyaamadiibuu dhinac ka shabahaa. marka aad fiiriso inay dadkii kala cararayaan, marka aad fiiriso inay aabbaha iyo hooyada oo dhimanayo isbitaalka ku jira inaan laguu fasaxayninooda u tegaynin, 10 qof ruuxii dhalay ama 8 qof dhalay ama ka badan dhalay maanta inuusan qofna isagoon la joogin naftu ay ka baxayso, adigii bannaanka taagnaa xitaa inaad cabsanayso, waalidkiina inuu leeyahay qof walba oo inteena naga mida wuxuu ku fikirayaa, ama umniyaadka ugu weyn oo lagu fikiri jiray wuxuu ahaa waalidka markuu dhimanayo inaad madaxa aad hayso inuu dhabtaada ku dhinto, inaad tidhaahdo hooyaday ama aabbahay anigoo dhabta ii saaran tahay oo madaxeeda fadhiya ayay naftu ka baxday. waa waxyaabaha qofku uu ku degi karo. laakiin subxaan allah, maanta waxaa la arkay oo ina soo martay hooyada iyo aabbaha iyo waalidka oo geeriyoonaya oo ku jira isbitaalka, ama adigii oo geeriyoonaya oo xaaskaagii iyo ninkaagii iyo ilmahaagii ayna kuu imaan karin. 3 maalmood ka hor ama 2 maalmood ka hor wiil baan la joogay, waalidkiibaa xanuunsanaa. caawa hadda saacad ka hor baa la ii sheegay inay hooyadaasi ay geeriyootay oo ay dhimatay. wuxuu ii sheegay 3 maalmood bannaankan taagnaa buuri. 3 maalmood hal qof oo dadkii ay dhashay looma fasixin oo mayna arag. caawana saacad ka hor bay naftu ay ka baxday. waa waddankeenan maraykanka dadka ku geeriyoonaya weeye. inkasta oo la ii sheegay inuusan cudurkii ahayn ayna u dhimanin, cudur kale ay u dhimatay, laakiin iyagu cabsi ay ka qabeen way ka celiyeen waalidkii intaa ilmahoodii soo hayay, gabdhaheedii wiilasheedii iyagoon indhaha saarin bay nafti ka baxday. haddaba walaalayaal, ma moodaa aayaddii qur-aanka ahayd oo rabbi uu lahaa yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yughniih. maalinta qiyaamo wuxuu ka shabahaa in la kala cararayo. wiilku iyo ilmuhu, qofku wuxuu ka cararayaa walaalkii, aabbuhu wuxuu ka carari caruurtiisii, xaasku waxay ka carari odaygeedii, ninku wuxuu ka carari xaaskiisii, dadkii isdhalay way kala cararayaan, dadkii isu dhaxayna way kala cararayaan. yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yughniih. maxaa dhacay? su-aashu weeye. qof walba qiyaamada wax isaga mashquuliya oo ka weyn baa ku degay, sidaas daraaddeed bay u kala cararayaan. wakadalika coronavirus isaguna waa wax inaga tabaroon oo ummadii qarqiyey oo ka waalay oo dadkii ay kala cararayaan oyna isbooqanaynin oo qaraabadii iyo qoyskii iyagoo naftu ka baxayaan aan la sugeynaynin. arrinta labaad uu ka shabaho
coronavirus qiyaamada uu ka shabaho waxa weeye qiyaamada waxaa laga waramay haddii dadka aan ahlu iimaanka ahayn adduunka waxa yaallo oo dhan oo dahaba haddii la siin lahaa waxay jeclaan lahaayeen inay isku furtaan wakadaalika coronavirus maanta adduunka ninka ugu taajirsan hadduu ku dhaco dadka adduunka ugu xoolo badan ma raba inaan magacaabo laakiin qofka ugu xoolo badan hadduu ku dhaco haddii la yidhaahdo xoolahaaga oo dhan baa maanta lagaaga badbaadinaya oo lagugu daaweynaya oo daawadii intaa goyn lahayd baa la hayaa wuu dhiibi lahaa laakiin lama yaqaano daawadii goyn lahayd wax daawo oo loo garan qofina uu ogyahay ma ina aladiina kafaruu wamaatuu wahum kufaarun falan yuqbala min axadihim mil'u lardi dahaba yacni laga yeeli maayo haddii uu intaa isku firan la adduunka muggi oo xoolo ah laga aqbali maayo qiyaamada lagama yeeleen aakharana lagama yeeleen haddana adduunka qofkii ugu xoolo badan laga yeeli maayo inuu isku furto isku daaweeyo maxaa jira maba la garanayo daawo xoolaha uu kuu gooyaan ood ku iibsata lama yaqaan arrinta saddexaad ee coronavirus qiyaamada uu ka shabaho waxay noqonaysaa qiyaamada waxaa jira la yidhi rasuulku sal ly slm markuu ka waramayey 10 aayaatin ama calaamaatin kubraa 10 arrimood oo waaweyn oo calaamadaha qiyaamada waaweyn la yidhahdo calaamaadka kubraa la yidhaahdaa jira rasuulku wuxuu yidhi wa aakhiruhum midda ugu dambaysa waa naarun waa dab ka soo kacaya dhulka yaman oo dadka soo kaxaynaya oo habeenba meeshay baryaan kula baryi oo meel ka bilaabmay oo maxsharka iyo meesha qiyaamada carasaatul qiyaama dadka isugu wada keeni doona dabkaasaa jiri doonaa la yidhi qiyaamada sidaasoo kale cudurkaani wuxuu ka bilowday waddanka China ayuu kasoo bilowday Shiinaha sidaad ogsoon tihiin adduunka oo dhan qaaradihiisuna u gudbay maanta waxaa la yidhaha adduunka dadka ku nool taqriiban ilaa 190 iyo dhowr dowladood taqriiban ayaa ku nool say u dhan yihiin taqriiban wax yar ma ogina wuu gaadhay adduunka dhan haddaad khariidada fiiriso sidaas daraaddeed qiyaamadu dadkoo dhan bay jamcin doontaa isaguna dadkii oo dhan ayuu jamciyey ayib arrinta afraad oo uu qiyaamada cudurkani ka shabahayo waxa weeye inaynan qofna maanta waxaan isaga ahayn oo lagu fikirayaa ma jiro balu fiirsada awe dadkii istiraatiijiyaadka adduunka iyo balaynka adduunka dejin jiray away dadkii ka shaqayn jiray mu'tamaraadkii waaweynaa ee siyaasadda adduunka looga hadli jiray away kuwii dhaqaalaha adduunka looga hadli jiray away kuwii waxbarashada adduunka looga hadli jiray away xafladihii adduunka waaweynaa ee dhici jiray maaragtay laba qof oo isweydiinaysa maanta shir siyaasadeed baa meel ka dhacaya maaragtay ma isweydiinay away wixii oo dhan goormu baaba'ay maxaa loogu fikiri waayay fikir xitaa ma jira miya hal qof oo ku fikiri ama dowlad adduunka maanta ku fikiraysa intaasoo dhan ma jiro keliya maxay ku fikirayaan qof walba wuxuu ku seexdaa oo ku soo toosaa coronavirus see laysaga ilaaliyaa see looga badbaadaa see looga cararaa ayuu ruux waliba ku fikirayaa marka dhinacaana wuxuu ka shabahayaa waxaad moodaa aayaddii qur-aanka ahayd oo rabbi subxaanahu watacaala uri yowma ee maalinta qiyaamada ah marka la arko waa maalinta ay dadku ay kala cararayaan oo qof walba uu ka cararayo qofkii kale يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد maalinta ay hooyadu ilmihii caloosha ay ku waday caloosheeda ay taabanayso ay waayeyso yaa subxaan allah gabdhaha ka warrami kara fooshu dhibaatada ay leedahay xanuunka ay leedahay ee sida ay leedahay dumarka ayaa garan kara ka warrama fooshii aad ogeydeen ee xanuunkaad aragtay lahayd haddaadan garanaynin calooshaadii oo madha intaad taabato aad waayeyso ilmihii caloosha ku jiray ka warrama jacaylka ilaahay inoo geliya carruurteenna iyo xanaanka inoo geliya ilmihii yaraa eed dhashay eed soo wallacday eed caloosha ku siday eed foolatay eed dhashay eed u soo jeeday eed ku rafaaday oo aad saa u waday ood waayi doonto meeluu kugu dambeeyey goormuu iga dhumay yaa ogaa xaguu ku dhumay aan la garanaynin yowma tarawnaha tadhalu kullu murdacatin cama ardacat watadacu kullu daata xamlin xamlaha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى
ولكن عذاب الله الشديد عذاب كربي بعد سداس أو كلام مانتا أدون كوحوها المامي ضمان وحي لو فكريو دن ولا هالمامي قف اسوي الدين يمجرو لبا قفو كوضا شيكيسن مجرو أدون كي واهل ضمان وحصل ولا هالمامي كليا وحي كسو هادي سيدا قيامة هالكا لوغا فكريو أيا هالكا نكورونا فيروس لوغا فكريو arrimaha kale uu ku shabaha waxa weeye qiyaamada waxa la yiri cid kale oo hadli doonta ma jiro sida xadiiskii shafaacada ee dheeraa qof hadlaaya ma jira illa al-anbiya wa rusul ilaahi rusushiisa oo kali aba maalinta hadal u furaya wa kalaamu rusul rususha hadalkooduna waxa weeye allahumma sallim sallim allahumma sallim sallim ilaahayow ibadbaadi ilaahayow ibadbaadi ilaahu badbaadi mid walba waa sidaa maanta sidii oo kale ayuu qof walba ku jira allahumma sallim sallim waxa cajab badan salaantii aan dadka is salaami jirnay in la halmaamay waxa cajab badan muqaabaladii iyo mucaanaqadii iyo dadkii is qoraysan jiray ee laba waliba isku kogi jirtay in la halmaamay qofku maanta maalmihii hore waxaan xusuustaa salaanta ruuxa isagoo is ogeyn buu ku salaamayay oo la leeyahay yaan la is salaamin yaan la isu dhawaanin haddana qof xusuusanaya ma jiro qof walba kugu soo ordayay laakiin ma ee waxoogaa soo inkastoo xadir uu iska saaran yahay oon la ogolayn waddankan Mareykanka iyo meelo badan gobollo badan in la lugeeyo oo aad loo socdo waxoogaa baa meeloodoo kala duwanna waan tegay qof igu soo aada hal ruux oo gacan ii soo taaga maan arag hal qof يعني dadkan arkay dad muslimiina bay ahayn goobo aan ku ballansanaa baan tagayay oo barnaamij aan ku sameeynay laakiin hal qof oo intuu is ilaawo xitaa gacan ii soo taaga maana arag hal qof oo xitaa intaasoo fiid ii soo jirsada maana arag maxaa loo diidayaa allahumma sallim sallim maalin hore nin baa wuxuu dhahayay hadda salaanta hala joojiya laakiin wadaadada markaa arniyo culimada waa is ilaaway buu yiri waaban is ilaaway gacantaan oo la gala arkay laakiin hal qof oo maanta is halmaamay oo ii soo aada ama ii soo dhawaada maana arag allahu akbar waxay ku tusinaysaa اللهم سلم سلم قف كاد جعلي يا كاد نعبيد روح أدو دواني سمله هل كاسد كيس تاجيسه مركا تاسنا وحو كشبها سيدا مالنتا اللهم سلم سلم قيامة هذا الكيد وإنه قضي بيتنا أي كشبهيسه أرنتا كلا أو كشبها يوحى ويه ددك طبعا وكوضا دعيا قال يا مسلمنا كلا ريبي مايو لكن مسلمين إن شاء الله سيدا للرجين وحيقول نقني الشهادة بإذن الله عذر رضا وين أو علماء أي رادين ولعل إنه الشهادة نقضه أو يقف كاس الشهيد في الآخرة ونقن طونا أيو كجري طونا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم مركا قفك قلبي وناكسلي وقفك مؤمن كأه oo qiyaamada qof kale oo ay maalintaas iyada badbaadaya uu san jirin ilaa qofkii mu'minka ma ogiye insha Allah tanna qofka u geeriyooda hada qofka mu'minka narju waxaan rajaynaynaa oo yurja lahu loo rajayn inuu janno ilaahay u geli doono waxay noqon marka inuu qofkii arin muujisa guud oo sida qofku markii ay calaamaadka qiyaamada la arko oo ay kamid tahay qorraxdii oo xagga ka soo baxday oo calaamado badan indhaha la saaro dadku ay u cararayaan oo tooba ay ugu cararayaan ayuu dhinac kale ka shabahaa oo dadkii aad moodaa kulli inuu qof waliba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u sii cararayo uu sii baryayo waana habboontahay in alla loo cararo tadarrucaan samayno khushuucaan samayno rabbi aan barino subxaanahu wa tacaala kelimada labaad ee aan rabo inaan iraahdo waxa weeye lacallahu khayr waxaa suuragala inuu yahay khayr waxaa inoo muuqda annaga wajkan xun oo ah dadkii oo dhammaanaya runtii maantana waa ogtihiin waddanka aan hadda joogno oo Mareykanka waxaa la yidhi waa maalinta adduunka hal maalin يعني هل ودن أو ضد كدنتا وبدينهين ودن كان ما أنت كدنتين كون قف بكر ودافين أنت ما أنت لما تأفري لبطنك ساعة ودن بيسي السوق يصير هستاي هذنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى رجال إنه وحنعبنا هاي لكن خير ودنع كلكيه وعسى رجال إن نجعلها أو دنع كلا شر كيه والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي باقرن إنه قرن ولذلك أيها حال وح إلهي أبوري
oo shar keligii ihi ma jiro sideedaba waxaa suuragal adiga inay shar kugu muuqdaan shaygan inuu shar maxdi ay yahay waa suuragal sharun inuu yahay maxdi lidaati marka isaga la fiiriyo sida naarta oo kale iyo cadaabku waa shar buu yahay marka iyada loo fiiriyo laakiin marka la fiiriyo dhinac kale walacalla xikma oo inaga qarsoon oo rabbi uu og yahay oo ah inuu ku abaalmariyo kuwa cisyaan sameeyey oo rabbi awaamirtiisa diiday baa suuragal inuu Allah subxaanahu wa ta'ala marka dhinaca kale ayaa hadana khayr ayay ka noqonaysaa marka la'allahu khayr inuu yahay baa suuragal markii dhinacyo badan laga fiiriyo tusaale haddii aan fiirino awaamirtii ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee laga fogaaday balu fiirso nawaahidii iyo wixii laynaga reebay oo gacmaha lala gelayay iyo wixii layna amrayay oo la samayn lahaa ayaa wax yar maalmo gudahood ayuu cudurkani ku keenay in la sameeyo tusaale waxaa la xidhay meelihii qamaarka lagu ciyaari jiray adduunkeed ogtihiin kasiinooyinka ugu waaweynaa iyo Las Vegas iyo meelihii aad ogeydeen la aadi jiray lacagta adduunka ku dhammaatay waa la xiray meelihii tumashada loo tegi jiray aw jasiiradihii adduunka lagu tuman jiray ee la isugu tegi jiray ee xeebta la jiifi jiray waa la xiray away wixii la oran jiray khamrada meelihii baararkii waaweynaa ee khamrada adduunka lagu cabi jiray ee la fadhiyay habeen iyo maalin waa la xiray away makhaayadihii waaweynaa ee shiishada iyo qashinka iyo sigaarka habeen oo dhan halkaas rag iyo dumar la fadhin jiray waa la xiray away xafalaadkii waaweynaa ee heesaha iyo muusikada iyo balaayada maajinka ay ka socdeen ee halkaas ay dadku ku baabeen away waa la xiray away ikhtilaadkii nawaadidii waaweynaa iyo la isugu imaan jiray rag iyo dumar halkaa la isku dhex tuman jiray ee la isdhex ordi jiray oo ikhtilaadkii alla uusan badnayn away waa la xiray away musaafaxadii iyo gacantii rag iyo dumarkii ajaanibta ahaa ee wada kulligood gacanta isku salaami jiray qofna qof taaban maayo waxaaba ka daran fadlan can haadaa xijaabkii baaba la xidhayba gabdho badan oo soo xijaabtay adduunka hadda aad ku aragtay gabdho xijaabkii sharciga ahaa ee rasmiga ahaa soo xidhay walacalla inay corona dartii u xidhaan laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu uga dhigo niyadooda inuu saalix uga dhigo oo camal fiican oo alla waafajiyo oo ayna dib jirkooda u banaynin baan alla subxaanahu wa ta'ala u weydiinaynaa wuxuu ina baray corona nadaafadii islaamka la isugu yimid in gacmihii la dhaqo islaamkeenu 1441 yani intaas ka hor ayaa nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu inoo sheegay habeenkii haddaad seexataan gacmaha horay ha ka gelinina weelasha markaad soo kacdaan ilaa aad dhaqdaan baa leeyahay maanta waxaa lagu yiri dhaq gacmihi intaasoo daqiiqo waa inaad dhaqidaankii aad wado saabuun ku dhaq kan marmari fulaan guriga markaad tagto shower qaado kan samee waa nadaafadii islaamku la rabay dad nadiif ah oo diinteenu ay ku dhisnayd oo nadaafadu ay ahayd min al-iimaan qayb kamidaba ay ahayd ayaa maanta lagu tusayaa waxa ka sii waaweyn intaas oo dhan inuu corona uu baray caalamka biasri dhamaantii inay jirto quwwa rabbaaniya qaahira mudabbira hada al-kown kownkan aan ku noolahay inay jirto cid iskale baa halkaa ka soo baxday cid iskale inay jirto oo iyagu ayna lahayn oo kuwii lahaa dabeeca ummadda abuurtay iyo kuwii lahaa wuu iska ahaaday iyo kuwii lahaa wax inayna jirin ee ay jirto cid mudabbira oo iyadu maamusha ayay wada ogaadeen waxaana arrintaa daliilu ah kalimaadka ay adeegsanayaan xitaa kuwa madaxda ah kalimaadka ay adeegsanayaan ayaan mar walba waxaa ku soo dhaca kalimadii ra'iisul wasaaraha Talyaaniga uu yiri ardada iyo dhulka awoodii dhulku way dhamaatay awoodda samada dhiman muxuu ka wadaa awoodda samada ayaa dhiman way og yihiin inuu rabbi jiro dhulkan khalqay adduunkan khalqay oo kownkan iskale way garanayaan laakiin way istiidsinayaan sida kuwii horeba faraacinadii iyo kuwii mushrikiina carab naftoodu way ogaayeen inuu jiro alla dhulkan isagu khalqay adduunkan khalqay inuu jiro way laakiin cibaadada ayay diidanayeen oo u diidanayeen xitaa fawaa'ida waxaa la oran karaa uu maaragtay cudurkaani uu keenay oo dhinac kale ka la'allahu khayr nadaafada markaan ku jirna biicada adduunka waxaa ka dhici jiray shirar waaweyn
oo mu'tamaraad dawli oo biicada adduunka looga hadlo nadaafada looga hadlo dhulkani waa wasakhoobay hawadii way wasakhowday la leeyahay ayaa jiray intaasoo lacagaa lagu bixin jiray طيب waxaasoo dhan cidi dhag jalaq ma siin jirin laakiin maalmo yar gudahood bil iyo laba gudaheed baa adduunkii oo dhan nadaafadii u jeedsaday jidadkii bay qaar dhaqayaan guryihii bay qaar dhaqayaan meel walba la nadiifinayaa wixii wax lagu nadiifin jiray oo dhan baa adduunka si dhamaanaya marka wixii oo dadku ay kari waayeen buu isagu marka waxaa suuragala la'allahu khayr inuu yahay aqligii binu aadamka oo waliba kuwa aan alla rumaysnayn ee aaminsanaa caqliga iyo sayniska iyo waxyaabahan cilmiga iyagu ay yidhaahdaan aaminsanaa oo keli caqligii waa wareeray taxayur baa ku dhacay inuusan waxba qabanayninna way usoo baxday طيب waxaa la ogaaday dhinac kale qiimaha cilmigaa soo baxay bal u fiirsada qiimaha cilmiga qiimihii qur'aanka qiimihii axaadiista qiimihii culimada qiimihii xitaa atibada guud ahaanna almacrifiya knowledgeka waxa la yidhaha cilmiga qiimihiisi baa soo baxay waxaa yaraaday qiimihii caskarinimada iyo dabaabaadka iyo waxa la yidhaahdo maraakiibtii iyo adduunka xataa maraakiibtii ugu waaweyneyd ee badda dhex fadhiyey ayuu badda ugu galay hadda cudurkii bal u fiirsada yacni awoodda waxaa soo hadhay cilmi qofkii aqoon lahaa ama diin ha noqoto ama caafimaad ha noqoto keli bay noqoto in wax la weydiiyo kana ummadda u ducee la yidhaahdo kana qur-aan ha la aqriye la yidhaahdo kana adkaarti rasuulka lagu cararo oo laisu wada gudbiyo kulligood hadda dikrigan axaadiidkan rasuulka sala allahu calay wasalam yaa yaqiinay coronavirus intuuna imaanin allahuma inii acuudu bika min albarasi waljunuuni waljudaami wa min sayi lasqaam hadda waxaan filayaa adkaarta waxaan arkay ilmo yaryar oo caruur yaryar oo wada aqrinaysa oo kulligood dusha ka haya bilaahi calaykum haddaan isweydiino bil iyo laba bilood ka hor yaa yaqiinoo dikriga aqrin jiray allahuma inii acuudu bika min albarasi waljunuuni waljudaami ومن سيء الأسقام وحديث رسولك كسرا صلى الله عليه وآله وسلم لكن حديث كاسوحو قيمه صوبحي أو يددكو أركان مركي وحن هذا الأركي أيو صوبحي سيدا استرادت علمي إيو علمدي إيو أطبادي أيام مارتي صوبحية ونع كلنا أو الدرادة إيو شرف حمادة عسكرتي إيو وحي دباباتكي إيو وحي أدونك لسمين جري إيو وحي أو رنبا أيضا كو صوبحين يسوح بلسكو هاللين كريم waxaa walaalayaal soo baxaya wanaagii masaajidu ay lahaayeen cudurka naftiisa u fiirsada hadda masaajidda way naga xidhan yihiin hadda aniga idin la hadlaya masaajidka waxaan fadhiyaa xafiiskayga masaajidka ku dhex yiila laakiin hal ruux oo kale ma joogo keligay baa fadhiya maanta salaadii casar iyo salaadii maqrib iyo salaadii cishaayba halkaanaan joogaa hal qof oo kale ma joogo waxaa ii muuqanaysa qiimihii ay masaajidayaan hadda arkaynaa أو ضدكي استوى مراي أو قروحدي أو سلانتي أو جماعاتكي أو جمعادي أو ضدكي سوسو جلي أو وحي أردن حدا دريمينا وحالي هذا النعمة وحال وأقون صدا بضدها تعرف الأشياء يعني وحال وأقون صدا النعم بأضداد ضد كذا يا أبسيط كمركز شيء كله معنى إنه ما بقينا دريمين فإذا ضد وحاجر مساجد عاي ولماذا عاي جري wax ku tuuray kuwiiba hadda waxay leeyihiin wallahi maalin dhaweed waxaa la ii sheegay nin iyo masaajiddu wax ka sheegi jiray oo mar walba ku taagnaan jiray oo masaajidda iyo dadka ahlu cilmiga un haysan jiray baa wuxuu leeyahay ilaahayow mar nofur walla inaana mar dambe ka hadli doonin masaajid yani wuxuu dareemay waxa ka maqan qiimihii baa layna barayaa waa layna dareensiiyey waa layna baray inaynu maanta sharaf haddii maanta laynoo fur lahaa ilaahayow noo fur bishii ramadaan baa 2 wiig ama 3 wiig inaga xigaa bilaahi calaykum xagee aw salaadii la soo iimaan jiray aw taraawiixdii aw nishaadkii kun qof iyo ka badan baa soo iimaan jiray habeen walba farxad iyo qosol baa lagu jiray cibaadaan ku jirnay damaashaad baan ku jirnay ciid baan ku jirnay aw wixii ka waramay ciidii hadii la soo iimaan karo gurigaaga fadhi waa nicamta ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa waxa uu ina tusaayo haddaan weligaaba aan laga celinin weligaa ma kugu dhacday inaada intaasoo weliba gaar ahaan ragga dumarku awalba gurigooda jumcadu waajib kuma ahayn laakiin 3 jumco oo isku xigta inaadan jumco tukanin weligaa ma ku soo martay fi taariikh ma ku soo martay
waxaa suuragal inaad tira weliga ima soo marin weligaa ma ku soo martay inaadan ramadaan aadan habeen taraawiix aadan tukanin masaajid tegin waxaa suuragal inayna ku soo marin haddaba hadda ayaa waxaan fahmaynaa qiimihii ayaan dareemi karaynaa waa waxyaabaha maaragtay ina tusaaya ayay ka mid tahay usartii iyo qoyskii wuxuu ina tusay wanaagga cudurkaani dhinacuu kelaya lacalahu khayr qoysaskii baaba isbartay reerkii xaaskii gabdhihii runtii waxaan idhaahdaa gabdhuhu way dulmanaayeen oo dhib badan baa haystay oo ilmihii baa maaragtay looga tegay oo gurigii baa looga tegay oo shaqadiisi baa looga tegay oo cuntadii baa lagu daayay oo wax walbaa lagu daayay oo nin waxba kama ogeyn oo meelahaasay fadfadhin jireen oo way ka cararayeen guriga oo banaankaasay kusoo damaashaadi jireen laakiin gabdhihii baa gurigii laisugula yimid inkastoo waxoogaa koolal badan nagu soo dhacayo culimada maalmahan oo gabdho badanna odayaasha ay dhib ku hayaan oo maaragtay ay weligoodba ilanmaba is aqooninba qaar baa soomaaliya waa maqashan shalay mid baa ku dilay xitaa laygu dhahayay soomaaliya ku dilay xaaskiisii oo amindhaajaadkii iyo wixii la gedi jiray markii la waayay hadda reerku kusoo laabanaya marka guryaha hadda durba cabaad baa ka bilowday oo gabdhihii nimankiibaa kusoo gurya noqday oo maaragtay runtii dhinacaas woo ka jira lakiin anigu waxaan is leeyahay nisbada iyo qeybta waa qeyb yar weeye inta fiican baa badan 80% waxaan is leeyahay odayaasha guriga joogay faa'iido u keeneen hadda ilmihiibaa qur-aanka waxaan aragnay aabbayaal aan ogeyn ilmahoodu meesha qur-aanka marayaan oo hadda ogaaday aabbayaal aan ogeynba ilmahoodu iskuulka maadooyinka ay ku liitaan iyo kuway ku fiican yihiin oo hadda ogaaday maxaa jira macallinkii wuxuu soo galay skype buu kuu soo galo subaxii buu life kuu soo fadhiisanayaa adaa lagaa raba ciyaalkii aad subaxii kiciso fadhiisiso wax la diyaariso kadib macallinkii aad ogaato wuxuu ka baxay uusan ka bixi cunugaagii meeshuu marayaaba kuu soo baxaysa marka gabdho badan faa'iido ay u tahay alxamdulilah marar badan baan lahaa gabdhihiiyow ka faraqabsada odayaasha intaanay guryaha fadhiyaan ku shaqeeya oo maaragtay ka faraqabsada oo mabaydan arki jirin bal hala isbarto insha allahu taala wala alla dhinacaana faa'iido inay ka tahay waan rajaynaynaa insha allahu tacaala maalin dhawood waxaan ka hadlayay xitaa runtii guurka oo kale waxaa laga yaabaa inaad tirahdaan ma guur ba hadda dhici kara laakiin waan arkay intii hadda hawshan socotay ilaa dhowr aroos baan ka qayb galay laakiin yaa isu yimid aroosyadaas baad u malaynaysaan waxaa isu yimid wadaadkii iyo laba qof oo markhaati noqda iyo ninkii gabadha loo meherinayay cid kaleba ma imaanayso marka waxaan idhi dhinac faa'iiday ka tahayoo war dadkii guursan kari waaye ee xafladaha badan laga rabay ee hoolalka waaweyn inuu kireeyo laga rabay ee dhowr iyo 10 kun iyo 20 iyo 30 kun ee arooska ku bixin jiray oo hadda idinkuna guursada ka gaarsiiya insha allahu tacaala intuuna karoonuhu dhammaanin ha laga gaarsiiyo jaanis baad haysataan waxba idinka bixi maayo easy baad ku guursanaysaan insha allahu tacaala guri xalaalan aad ku gelaysaan dhinacaana walacalla inay ka tahay fawaa'id insha allahu tacaala cumuuman markaan isku soo duubo shaki kuma jiro in adduunka ay mushkilo weyn iyo wabaa uu ku habsaday inay goobihii cibaadadeed naga xidhan yihiin laakiin dhinaca xidhnida mooga dhinaca aan ka fiirinaya lacallow khayr ay ka tahay waa inaan qiimihii shayga aan ogaano masaajidii markay soo galaan dadkii aadaami jiray qaar wad aragteen adduunka iyo facebook iyo kulli oohin bay la dhacayaan away yaa ku tukanaya xayi cala salaad markaad dhan xayi cala farax yaa kuu imaanaya ayib maki iyo madiinaan ramadaankan laga yaabaa inaan qofna tegin oon qofna isugu tegin oo ku tukanayn marka qiimihii baad baranaysaan ilaahay ha naga xirmaanin allah yaa rabbi ha naga xirmaanin inaan idhaahno yaa rabbi noo fur yaa rabbi guryahaagii nagu soo celi masaajidii noo soo celi khayrka yagii noo soo celi alwabaa iyo jiradan ilaahu naga dulqaad ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka ka badbaadi dhammaanteen allah inaga badbaadiyo inta u jiifta oo tirada badanna ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad ha siiyo intii dhimatay muslimiintahana allah u naxariiso naxariistiisa shuhada allah uga dhigo inta dambana ilaahay subxaanahu wa tacaala inaguma fidneeyo jazaakum allahu khayran وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زادك الله التقوى وغفر الله ذنبك ويسرك الله حيثما كنت جزاك الله عنا خير الجزاء. ربي سبحانه وتعالى جل وعلا إخلاص تامك على اليوم ميزانك حسناتك الله وكساره دمك عالي دمك وجزا الله بارك الله فيك شيخنا. إلهي سبحانه وتعالى أخبرك ورقي سفيعا بأولا هذا الشيء قبلي ميل بضبا كريت كسيسي أنقول لك أفتمع رقنا ميل
بكريت كذي هل حتى هكاك دي بارك الله فيك وكم سهل يا شيخ إلى أكبر كيو جزاك الله خيرا إن شاء الله الله أكبر كيو بارك الله فيك جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة